isaga oo ka jawaabayay weydiimaha warbaahinta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in ku dhawaad 5 jeer uu dib u dhac ku yimaado doorashada madaxtinimo ee dalka sida ogtihiin madaxweynaha wuxuu ballan qaaday 4 sano ka hor in doorashadu ay noqon doonto qof iyo cod waqtigii loogu talagalayna la qaban doono oo ahayd September 10keeda nasiib darro ma dhicin qof iyo codkiisa waxa loogu yeeray election dadban mana dhicin waqtigii loogu talagalay kaliya ma dhicin waxa dib loo dhigay 5 jeer waxa la qabtay October 30keeda dib baa looga dhacay November 30keeda dib baa looga dhacay December 28 dib baa looga dhacay haddana waxaa la wadaa in bishaan ay dhacdo runtii taasna mas'uuliyaddeeda isaga qaadaya hoggaanka qaadaya maxaa yeelay ummadda haddaad wax u ballan qaado oo aad ballan la gasho waa inaad fuliso waxa uu baraare in nabadgelyo u rajeeyay dadka Soomaaliyeed inay ku qaataan sanadda 2017 oo maanta curtay waxaan rabaa inaan hambalyo u diro shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu bishaareeynayo waan leeyahay sanad wanaagsan sanadkan 2017 inuu noo noqdo sanad isbedel oo noo keena nabad iyo barwaaqo haddii Ilaahay yiraahdo dad badan ayaa aaminsan in musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uusan xiriir wanaagsan la lahayn beesha caalamka Farmaajo ayaan weydiiyay rajada uu ka qabo kursiga uu ku sareeyo dalka isagoo aan haysan wehel ajnabi ah beesha caalamku dalkan horta waxa iska Soomaali taas horta ogaada mas'uuliyadiisana waxa qaadaya dadka la doorto xildhibaanaduna waxay matalaan shacabka Soomaaliyeed dawlad kasta oo la doorto waa khasab in caalamku ay la macaamilaan maxaa yeelay qof ma aha kaligiis meel ka soo baxay wuxuu matalaya 12 milyan oo qof caalamka marka beesha caalamka waxay rabaan ciidan qaran in la dhiso si ay ciidamadan 1 bilyan dollar uga baxa inay guriyahooda u diraan waxay rabaan in Soomaaliya ay nabad noqoto oo dhalinyaradeeda iyo shacabkeedu ay maxaan ku raahdaa nolol iyo mustaqbal ay ku lahaadaan taasna waxaan hubaa anigu inaan isbedelkaas keeni karo musuqmaasuqu waa waxyaabaha ugu daran oo in dawlad la shaqeynay saad ogtihiin waxa lagu yaqaanaa in dadka xuquuqdooda aan siiyo ay ugu horeeyaan shaqaalaha iyo ciidamada miisaaniyada aragtaan oo sanadla ah dawladeedii yaa ugu horeysay wax sanadla ah anu intaan imaan ka hor dadku isma weydiin jirin mushahar laakiin hadda waxa la leeyahay 8 bilood baa maqan dadku waxay xisaabtamayaan taas waxay ka timid wixii aan bilownay hogaamiyaasha madasha wadatashiga ee Soomaaliya ayaa bilowga sanadkii dhamaaday ee 2016 waxay qabeen rajo ah in dalka Soomaaliya ka dhacdo doorasho madaxweyne laakiin ma aysan suuragelin baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa go'aamin doona dhameystirka doorashooyinka lagu wado in dalka ay ka dhacaan bilowga sanadda 2017 Aways Maxamuud Julcawaar TNTV Muqdisho